ألف صلى الله على قمر الكمال سبحانه وتعالى maalinta ciida ah ee shicaarkeedu iyo kelimaadka astaanta u ah ee lagu garta ay tahay kor u qaadida tawxiidka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar maxaa yeelay ilaahay wax ka weyn ma jiro markaan salaada xidhanayno waxaanu dhahnaa Allahu akbar mar walbaba qul ayu shay'in akbaru shahada qul illah shahidun bayni wa baynakum haddaba ilaahay wax ka weyn ma jiro subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar tawxiid laa ilaaha ila Allah wallahu akbar soddon maalmood baa la soo soomanaa gabalkii ayaa dhacay shicaarka iyo kelimadaas baa la qaadaa salaadaha kadib maalintaa waa maalin ciid ah waa maalin jaa'izada weyn la bixiyo qofka hadduu soo shaqeeyo ama uu imtixaan galo qof walba waxaa lagu abaalmariyaa wax uu keenay wax u dhigba ayaa lagu abaalmariyaa haddaba maalinta ciidda ah waa maalinta abaalmarinta rabbi uu abaalmarinayo dadkii soo shaqeeyey koorsadana ka soo baxay 29 maalmood ama 30 maalmood haddaba waa maalin farax badan oo qofka muslimka uu ku farxayo wixii uu soo shaqeeyey maanta midhaheeda inuu guranayo aqbalkase Allah iska leh rajadan saqabna waxaa weeye iyo dhanniga iyo xusnu dhanniga Allah aan ka malaysanayno annagoo wadooyinkiina loogu talagalay marnay sallu kama ra'aytumuni usalli sidaad u aragteen anigoo u tukanaya saan idin amray nabigu leeyahay sidaad u aragteen u tukanaya u tukada maalan khuduu canni manaasikakum wama aataakum ar-rasuulu fakhuduuhu annagoo halkaa ka duulayna asbaabta annagoo qaadanayna malaha aan alla ka malaysanayno inuu alla naga aqbalo maxaa yeelay rajadan qabna waxaa weeye subxaanahu wa tacaala alla aan ka rajaynayno malaha wanaagsan mar walba inuu alla nagu abaalmarinayo subxaanahu wa tacaala maalinta annagoo rabbi ka rajayna mala wanaagsan haddanana waanu faraxsannahay mashaariq alardi wa magaaribiha muslimiinta milyaar wa nisfu milyaar muslim ayaa maalintaa faraxsan ya tura maalintaa maxaa laga doonayaa waxaase faraxsan qofka soo soomay waxaase naxsan qofka aan soo soomin ee aan waajibka la imaanin maalintaa waa naxsan yahay maxaa yeelay waa yowmul yani tawsiicu aljawaa'is jawaa'ista maalinta la qaybinayo weyn ilaahay ha nagu daro kuwa jawaa'ista maalinta la siinayo subxaanahu wa tacaala maanta waxaan maqlaynaa waxaa weeyaan koox hebel ayaa waxay ku tartameen orod kadibna waxaa qaaday wiil soomaaliyeed baa xagga qaaday ama wiil mataqaanaa kanaa qaaday waxaan maqlaynaa waxaa lagu tartamay intaasoo nooc laakiin jawaa'ista la qaybinayo iyo suumanka dahabka la qaybinayo iyo bilada la isku xidhayo maalinta qiyaamo waa cidda 29 maalmood ama 30 maalmood koorsada siday ahayd oga soo baxay amarka allana qaatay subxaanahu wa tacaala maalintaas ayada ah sida sunnada in la farxo wey sida sunnada in laysu tahniyeeyo weeye oo tahniyad laysu diro qaraabadu isxidhiidhiso laysa salaamo in lays cafiyo qodobada muhiimka ah ee raba maalinta inaan tilmaamo ogana faa'iidaysto fursadan qiimaha badan waxay tahay kow horta in lays cafiyo oo qalbiga waxa ku jiro dhan laga saaro almuslimu akhul muslim waxaadna ogaataan maalin kastoo isniin iyo maalin kasta oo khamiisa acmaasha kor baa loo qaadaa rabbina albaabadu u furaa malaa'igtuna way aqbashaa allana waa ka aqbalaa ilaa 2 qof ma ahane waa 2 qof ay dhibaato ka dhaxayso wuxuu rabbi dhahaa celiya ilaa ay ka soo heshiiyaan ma kula tahay maalinta ciidda ah acmaasha dadka kor loo qaadayo in camalkaaga la soo celiyo waa suurtagal sababtu waa maxay qof walaalkaa ah shahaadanaya ahlu tawxiida muslima xoolo iyo wax kale idinka dhaxaynin ayaad xumaan u haysaa xumaan baad qalbiga ugu haysaa xataa laga yaaba inay waxba idinka dhaxaynin xataa waa laga yaabaa inayna waxba idin dhex marin mujarad waxaa laga yaabaa inaad ku nacdo waa ree hebel kownuhu inuu qabiile hebel ka dhasho inaad ku nacdo waxaa laga yaabaa inaad ku nacdo wuxuu alla siiyey oo xawlo iyo awlaad iyo cilmi iyo xooga ayaa laga yaabaa inaad ku xasado qalbigaaga ka tirtir xaasidnimada ka tirtir oo kibirka ka tirtir oo isla weynaanta ka tirtir
oo macsida ka tirtir sidaa daraaddeed magaalo walba dadka jooga dad walba oo isla jooga si gooni ah waxaa waajib ku ah inay si dhaba isu cafiyaan iscafintu ma aha intii mimbarka la soo istaago ama mataqaana microfonka la qabsado ama shafka la isa saaro in la yidhahdo waa la iscafiyey haddana markii la kala dhaqaaqo inay halkii laga sii miiso taasi iscafin ma aha iscafintu waa inay halkaa ka soo go'do waa inay qalbiga ka soo go'do waa inay niyada ka soo go'do waa inaad ilaahay wax u horumarsato subxaanahu wa tacaala taasi waa midaan kula dardaarmayo aniga naftayda iyo walaalaha muslimiinta ah meel walbo ay joogaanba maalinta ciidda waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in laysu tahnideeyo sida aanu sheegnay waxaa kaloo ka mid ah in dhar qurqurux badan la qaato in la isnadiifiyo nadaafad dhammaystiran maxaa yeelay diinteenoo dhan ba addiinu nadaafa cidyaha in la gaabiyo shaarubta in la gaabiyo